kulanti habboon idin lahaantiinba daawadayaal meel weliba oo aad ka joogtaan dafaha caalamka halkan waa RNN Somali TV ku soo dhawaada war waxaanu idinkaga haynay dhulka ay Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa qaybka Itoobiya oo ciidamo soo buux dhaafisay xadka ay wadaagaan Soomaaliya ka gadaal dhaqdhaqaaqyo xoogan oo halkaasi maanta ka jira mucaaradkuna waxa ay war culus ka soo saareen go'aankii dhowaan ay dawladdu gaartay ee ku aadanaa doorashadii hore in guud ahaanba la joojiyay isla markaana nooc cusub oo doorasho ah dalka uu galayo qodobada iyo kuba kale ayaa daawan doontaan ee soo dhawaada daawada hadday tahay markaaga kugu horreysay ayaa soo booqato halkan subscribe noo saar noon like muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada anu ku horumarno wararka ka imanaya gobolka Gedo waxa ay ku waramayaan in magaalada Doolow ee dhacda xad beeneedka ay wadaagaan dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya la soo dhoobay ciidamo tirabeela kuwaasi oo ka yimid dhinaca iyo deegaanka Suufta waxaana lagu soo waramayaa in tallaabadaasi ay timid ka gadaal markii Itoobiya dhowaan ay ka warhashay in saraakiil dawladda Masaarida ka socda ay tageen degmada Balad Xawe ee gobolkaasi Gedo halkaasi oo ay ka ilaalinayeen guud ahaanba isla markaana ay ka soo indhaynayeen goob ay fariisin ka dhigta waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi Itoobiya ay ka carootay taliyaha militariga dawladda waddankaasi Itoobiya General Burhanu Jula oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in tallaabo ay qaadi doonaan haddii daandaansiga dawladda waddanka Masaarida ee ay ku imaadayso gobolka Gedo guud ahaanba la joojin waayo waxa uu sheegay in ciidamo tiro ahaan gaaraya ilaa iyo 6,000 oo askari ay keeneen xad beeneedka si ay u ilaaliyaan guud ahaanba xadka Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya waxa ay ka cabsi qabtaa in dhanka Soomaaliya weerar uga yimaado isla markaana dawladda Masaaridu ciidamada halkaasi ay keenayso ay guud ahaanba halis ku yihiin jiritaanka dawladda Itoobiya Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisuna waxa ay ku dadaalayaan guud ahaanba in la hakiyo dhaqdhaqaaqyada Masaarida ee gudaha gobolkaasi Gedo ka gadaal saraakiishii dhowaan ka degtay Balad Xawo dawladda federaalku waxa ay qorsheynaysaa ciidamada Masaaridu inay ka dejiso halkaasi si guud ahaanba ay fariisimo uga dhigtaan magaalada Balad Xawo waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay culus tahay dhowaan ayay ahayd markii dawladaha Itoobiya iyo sidoo kale Kenya ay kala wada hadleen dawladda federaalka Soomaaliya in la joojiyo guud ahaanba keenitaanka ciidamada Masaarida gudaha gobolkaasi Gedo oo ay xad wadaag yihiin waxaana la tilmaamayaa tallaabadaasi in dawladdu aysan dhag jalaq usayn isla markaana ay ciidamadaasi toddobaadka soo aadan ay ku soo wajahan yihiin gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ay u gudbayaan dhanka iyo magaalada Balad Xawo qorshaha waxa uu yahay ciidamadan inay si aanba qaadaan guud ahaanba howlgallada nabad ilaalinta ay ku imanayaan gudaha Soomaaliya waana howlgalka dhowaan curudka ee AUSM oo ay qayb ka yihiin dawladaha Masaarida iyo sidoo kale Eritrea waana tallaabo culus oo ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada dawladda waddankaasi Itoobiya ee ku sugan gobolkaasi Gedo ayaa la tilmaamayaa in hadda dhaqdhaqaaqyo xoogan ay halkaasi ka bilaabeen si ay uga hortagaan guud ahaanba qorshayaasha dawladda Soomaaliya ay ka wado halkaasi waxaana la tilmaamayaa in si buuxda ay isu barbar istaajinayaan maamulka gooni-goosadka ee Axmed Maxamed Islaam Madoobe ee Jubbaland waxaana tilmaamaya in qudhiisu Madoobe uu ka degi doono toddobaadyada soo aadan gudaha magaalada Doolow halkaasi oo diyaarada ciidan laga dejinayo sida ay qabaan saraakiilka agdhow Axmed Madoobe waxaana la tilmaamayaa in tallaabadu ay xoogaysatay maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyaduna ay wajiyo kala duwan yeesheen talabadan waxa ay timid ka gadaal wada hadallo dhowaan ay waday dawladda waddankaasi Kenya isla markaana la dhex dhigayay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland kuwaasi oo guud ahaanba dhicisoobay isla markaana guuldaraystay waxaana la tilmaamayaa in hadda xaaladdu ay weji kala yeelatay Madoobe waxa uu hordhigay dawladda dhexe ee Soomaaliya inay laba ka jawaabto kaliya in muddo xileedkiisa la aqoonsado iyo in guud ahaanba doorashada nooca ay doonayso dawladdu ay ka tanaasusho waa laba tallaabo oo lama gudbaan oo ay dawladduna ku dhagan tahay waxaa la tilmaamayaa in Madoobena uu go'aankiisa ku adkaysanayo dawladduna ay teeda ku adkaysanayso waxayna u muuqanaysaa in guud ahaanba dhinacyadu ay isku soo dhoween waxay u muuqanaysaa markan in Madoobe tallaabadiisa iyo go'aanadiisa hore ee markan uu ku dhaqaaqayo kuwaasi oo ah in guud ahaanba weerar uu ku wajaho dawladda dhexe ee Soomaaliya dagaalkaasi ayaana la tilmaamayaa in wajiyo kala duwan uu yeelan karo dawladda federaalku waxa ay doonaysaa iyaduna in guud ahaanba maamul macmal ay ka dhisto gudaha magaalada Garbaharey ee gobolkaasi Gedo halka sidoo kale maamulka Madoobena uu diidan yahay waxaa la tilmaamayaa Madoobe inuu isticmaalayo ciidamada waddankaasi Itoobiya kuwaasi oo guud ahaanba uu doonayo inuu gudaha u soo geliyo gobolka Gedo si ay u tagaan magaalada Garbaharey oo ah goobta ay dawladdu ka yegleelayso maamulka cusub halka dawladduna ay ciidamo tirabeelba
ciidamo tirabeel ah maalinba maalinta kasii dambeysa ay kusii daadguraynayso gobolkaasi Gedo waxaana fariisimo ay ka sameysanayaan magaalada dhowaan lagala wareegay Jubbaland ee Balad Xawo waxaana la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyadu hadda ay wajiyo kala duwan yeesheen waxaana wararka qaar ee la helayo ay tilmaamayaan xiisada gobolka Gedo inay wajiyo kala duwan leedahay wadamo shisheeye ayaana la tilmaamayaa inay ku gacan leeyihiin wadamo shisheeye ayaa la tilmaamayaa inay gacan ka geysanayaan dagaalada ka soconaya gobolkaasi Gedo isu taga Imaaraadka Carabta Itoobiya iyo Kenya ayaa ugu madax fiiqan wadamada sida weyn u taageeraya Axmed Madoobe isla markaana ka caawinaya in gacanta dib loogu soo celiyo gobolkaasi Gedo waana tallaabo markaasi ay si weyn uga wada shaqeynayaan dhinacyadu waxaana la tilmaamayaa hadda dowladdu inay qaadayso tallaabooyin kale oo kuwaasi ka duwan si ay uga hortagto dhaqdhaqaaqyada guud ee halkaasi ka soconaya ciidamada Itoobiyaanka ee soo buux dhaafiyay Doolowna waxa ay ka tarjumayaan inay rumeeyaan rajada Axmed Madoobe ee ah in mar gacantiisa ay ku soo laabato guud ahaanba amniga gobolkaasi waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba uu naawilayo rajo culus oo ku dhisan guud ahaanba in gobolkaasi mar kale uu isagu gacantiisa ku maamulo waana tallaabo kale oo ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya inay beynteeso si ay uga hortagto dhaqdhaqaaqyada si fidaya ee dowladda Itoobiya ee gobolkaasi waxaana la tilmaamayaa hadda in fariisimo ay ka sameysanayaan magaalada Doolow adoo dhinaca dowladda waddankaasi Itoobiya waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba hadda ay fariisimo halkaasi ka sameysteen ciidamada Itoobiyaanka iyo ayna mangal tahay inay sii xoojiyaan dhaqdhaqaaqyada military ee ay halkaasi ka wadaan haddii aynan jirin garab saddexaad oo soo kala dhexgala waxaa la tilmaamayaa in masaarida iyo sidoo kale dowladda Itoobiyana ay mangal tahay in mar kale ay isku farasaraan gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolkaasi Gedo lama soo oga xiisadaasi iyo halka ay saldhigan doonto markan mucaaradka dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya shirar ku lahaa maalmihii ugu dambeeyay ka gadaal shaacinta dowladda federaalka Soomaaliya ee doorashada dadban waxaana la tilmaamayaa in ay tallaabadaasi si weyn u diidan yihiin xubnahan mucaaradka ee ku shirsan gudaha Hotel Jazeera ee caasimada Muqdisho warshaha ugu muhiimsan ee xubnahan ay leeyihiin ayaa ah in guud ahaanba dowladdu nooca hadda ay shaacisay ay tahay isdoorasho rasmi ah oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha talada jooga Xasan Sheekh Maxamuud ka gadaal markii guud ahaanba war faafinta ay u marsiyeen dhowaan warqado qoraal ah oo ka soo baxay xubno ka tirsan mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ku qornaa in guud ahaanba lagu dooranayo madaxweynaha xarunta Villa Soomaaliya gaar ahaan Villa Hargeysa oo ay ku shiraan baarlamaanka Soomaaliya waana tallaabo culus oo ay markaasi si weyn u diidan yihiin xubnaha mucaaradka madaxweynuhuna waxa uu ku imaan doonaa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka qaab gacantaaga waana tallaabo kale oo markaasi guud ahaanba u muuqan karta in madaxweynuhu mar kale kursiga uu ku soo laaban karo maadaama ay ku soo gabagabi karta nooca doorasho ee markaasi ay shaacisay Villa Soomaaliya muddo 5 daqiiqo gudahood lagu dooran karo madaxweynaha dalka waana tallaabo ay si weyn uga digayaan xubnaha mucaaradka labadii maalin ee la soo dhaafay waxa ay ku shirsanaayeen Hotel Jazeera caasimada Muqdisho war-saxaafadeed ayay soo saareen mucaaradku waxaana ay sheegeen in tallaabada uu wado madaxweynaha jamhuuriyaddu ay tahay tallaabo uu mar kale dib isugu dooranayo lamana aqbali doona ayay yiraahdeen haddii tallaabada iyo hanjabadaha culus ee ka imanaya dhinaca dowladuna ay joojin waayaan waxa ay sheegeen inay qoran doonaan ciidamo beeleedyo kuwaasi oo ay uga hortagayaan kursi marorsashada uu wado madaxweynaha talada jooga waxaa la tilmaamayaa in hadda wajiyo kala duwan ay yeelatay xiisada u dhaxaysa xukuumadda talada joogta iyo mucaaradka waxaana maangala in guud ahaanba markaasi laga tanaasulo nooca doorasho ay dowladdu doonayso waana markii labaad oo ay ka tanaasuleyso ka gadaal doorashada qof iyo codka ay dhowaan uu ka tanaasulay madaxweynaha talada jooga mucaarad micno leh ayaa la tilmaamayaa in dhowaan looga dhawaaqayo gudaha caasimada Muqdisho ka gadaal imaanshiyaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo todobaadyada soo aadan ku soo wajahan magaalada Muqdisho ila dhaxalgal ayaana ku waramaya Xasan Cali Khayre Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Farmaajo inay ku bahoobayaan madal cusub oo mucaarada taasi oo guud ahaanba ka hor istaagi karta dowladda qorshaha ay ku dhisayso guud ahaanba doorashada iyo qaabka ay u wajahayso iyo wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay wana tallaabo culus oo ay markaasi mucaaradku qaadi doonaan lama soo oga halka ay saldhigan doonto guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerayaa daawadayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo